بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكبرون ويدينته what is a compound interest rate. Compound interest rate أما دولسار كإسكو دفن وحنكو قيحي كرنا دولسار لغو دفنايو لعاقتا آد بانجيغا ديغتي أما لعاقتا آد دينستي يولي بنا lacagtii dulsaarka ahayd ee laga helay sanadkii la soo dhaafay haddii deyntaa ay ka badan tahay sanad. si kale haddaan u dhigno lacagta dulsaarka ahayd ee sanadkii la soo dhaafay waxa ay noqonaysaa qayb ka tirsan lacagtii asalka ahayd. haddaba si aan u fahanno qeexidaas aan isla aragno qaacidada lagu saleeyay iyo welibana tusaalaha. aan ku hormarno qaacidada ama formulada compound interest rate. waxaa lagu heli karaa p lagu dhuftay hal lagu daray I to the power of n laga jiray p. haddana aan isla fahanno xarfaha waxa ay u taagan yihiin. p waa principal oo ah lacagta aad daynsatid ama aad bangiga dhiganaysid inta ay la eg tahay, halka I ay u taagan tahay dulsaarka ama boqolkiiba intee ayaa lacagtan deynta ah lagaaga kireeyey, halka xarafka u dambeeya uu yahay n una taagan muddada lagu ogol yahay inaad deynta ku bixisid oo markaa noqonaysa to the power. wixii intaas ka soo baxana kadib laga jarayo p oo ah principal, midaasoo ah lacagtii deynta ahayd. markana aan isla aragno tusaalaha. aan dhahno macmiil ayaa bangi ka deynsaday lacag dhan 10,000 waxaana looga kireeyey lacagtaa dulsaar dhan 5%, waxaana laga rabaa inuu macmiilka deynta ku bixiyo 2 sano gudahood. haddaba waa imise lacagta dulsaarka laga rabo inuu macmiilku bixiyo iyo welibana lacagta guud uu macmiilku bixin doono iyadoo la adeegsanayo compound interest rate. haddana aan isla aragno xogta aan ka soo dhex saari karno tusaalaha. p waa principal, lacagta deynta uu macmiilka u qaatay waa 10,000. n oo ah muddada waa 2 sano. I ama t waa imise ayaa looga kireeyey macmiilka lacagta interest rate waana 5%. intaas kor ku xusan haddaan isla fahanay aan aragno sida aan u xisaabin lahayn. 1 lacagta dulsaarka inta ay noqonayso. 2 tirada guud ee deynta laga rabo inuu macmiilku dib u bixiyo waa imise. horteenna waxaa ka muuqata 10,000 oo lagu dhuftay hal lagu daray dulsaarka oo ah 5% to the power of 2, 2 sano oo ah muddada deynta kadibna laga jaray 10,000 midaasoo ah 10kii deynta ahayd. haddaba si aan u helno jawaabta aan qayb u xallinno xisaabta horteenna ka muuqata. aan ku hormarno qaybta dhexe ee ku jirta bracketka hal lagu daray eber dhibic eber 5. haddaan labada isku geyno waxay noqonayaan 1.5. haddaan dhahno to the power of 2 waana 2 sano oo muddada deynta ahayd, waxaa inoo soo baxaysa 1.125. adi xataa hadda isku day inaad tijaabisid. kadibna tirada aan ku dhufanno 10,000 ee naga xigta dhanka bidix waxaa inoo soo baxaysa $11,025. kadibna aan ka jarno 10,000 ee naga xigta dhanka midig waxaa inoo soo baxaysa $1,025. haddaba $1,025 waa jawaabta su-aasha koowaad ee ahayd waa imise lacagta dulsaarka ah ee laga raba inuu macmiilku bixiyo. haddana aan u soo jeesano inaan ka jawaabno lacagta guud ama tirada guud ee laga rabo inuu macmiilku dib u bixiyo. waxa ay noqonaysaa 10,000. haddaan xasuusano macmiilka waxa uu soo deynsaday 10,000 oo asalka ahayd. haddii aan ku darno inta dheeraadka ka noqotay oo ku imaatay dulsaar ahaan midaasoo noqotay $25,000, haddaan labadaa tiro isku geyno waxaa inoo soo baxaysa $11,025. taana waxay jawaab u tahay qaybtii labaad ee su-aasha ee ahayd waa imise tirada guud uu macmiilku bixin doono. insha allahu qeexidda soo socota ayaan si guud kaga wada hadli doonaa yaa fiican, ma simple interest rate ayaa fiican mase compound interest rate. xog dheeraada oo ku saabsan erebixinada dulsaarka interest rate,
simple interest rate, fixed interest rate, variable interest rate. fadlan ka dhageyso lifaaqyada hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.